maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas'uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada saaxiibayaal video cusub videogeena waxaan ku qaadaa dhigi doonaa 10 shay waa ka baaqsanayd sameeyntooda imtixaanka ka hor laga yaabaa inay kaaga dhiman tahay imtixaanka 2 bari 3 bari ama 4 bari number 1 jooji adeeg isticmaalka social media sida WhatsApp-ka emaha messenger-ka Facebook Instagram-ka kuwaasoo dhimi kara waqtigaaga ku mashquulada post oo soo dhigay saaxiibka inta laag ayo helay inta qof oo comment ka dhiibatay ama post adiga nafs ahaantaada aad dhigtay waxa soo dhan waxay burbur iyo baaba xog la ku yihiin isticmaalka waqtigaaga number 2 ha weydiin saaxiibka inta chapter uu aqriyay waxa laga yaabaa saaxiibka inuu aqriyay 5 chapter adna wali marayda 2 chapter taasoo ku keeni karta walwal murugo walbahaar sida awgeed ha isbarbar dhigin naftaada qof kale number 3 jooji aqrinta buugaagta cusub kaliya ku ekaa buugga reference-ga ku ah ama note-kaaga sidaad ugu jaawareerin buugaagta cusub number 4 jooji weesida haweensan wax aqri weesida waa tuuga kaliya ee waqtiga xada mahmaaya carabiga waxay leedahay la tuaqir amal yawmin ila qadin oo macnaheedu yahay shaqo maanta ku taal dib ha u dhigan number 5 ha isticmaalin istiraatiijiyada qaabka qof oo wax u diyaarsanayo isticmaal qaab adiga ku gaar ah qofka waxa laga yaabaa inuu ka bilaabo chapterada ugu fudud ka bacdina uu dib u dhigto chapterada ugu adag sida awgeed marka adiga waxa gaar ah ku ahaadaan number 6 ha bedelin timetable-kaaga waqtiga imtixaanka uu soo dhow yahay go'aankaaga ha adkaado kuna wad timetable-kaaga sidii hore maalinta haday kugu qoran tahay 5 chapter ama 2 chapter ina aqrid ka go meel gaar aqrina inta chapter ee kugu qoran timetable-kaaga number 7 hadii aad uga tagto chapter option ahaan ha aqrin maalinta imtixaanka ka horeeda maxaa yeelay waa ku wareeri kartaa dhibaato badan ay ku keeni kartaa waxa hore u aqridana uu ka tirtiri karaa number 8 ha aqrin buugga oo idil kaliya waxa ka aqridaa lesson objectives-ka summary-ga glossary-ga diagrams-ka iyo flow charts-ka number 9 jooji cunida cuntooyinka banaanka loo galo kuwaasoo ku keeni kara calool xanuun calool matiir walwal hurdo caajis waqtiga imtixaanka number 10 jooji hurdada saa'idka macnaheedu maaha jiifo hurdo kugu filan asxaabta qaaliga videogan hada ka heshaan like saara hana hilmaamin videogan inta kulmi doona waqtigiina ka faa'iideysta